heshiiskan maanta ay wada saxiixdeen wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda Soomaaliya iyo shirkadda Spectrum oo sahmin ku sameeyso dalalka lagu sheego inay leeyihiin shidaalka sida Soomaaliya oo ah dal shidaal iyo macdan leh. goobta heshiiskan oo ka dhacay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid, mas'uuliin ka socotay labada gole ee dowladda iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada waddanka iyo madaxda shirkadda sahminta ku sameynayso shidaalka dalka. sahminta waxaan rajaynaynaa haddii la yidhaahdo heshiiska la saxiixay muxuu ahaa maanta halka lagu saxiixay runtii lagu baarayo xogta muxuu ahaa musaasiq diintada waxaa ku jira dhulkeena dhulkaasoo hadda ka hor la siiyey Shell iyo ExxonMobil. waxaan rabnaa xogtaas haddii la helo annaga ruuxeena waxaa noo fududaanaysa xukuumad ahaan shirkadihii 80 la siiyey in dalka kan concessions ka qaataan inaan kula xisaabtano ama inay wax sameeyaan ama inay ka baxaan. sababtoo ah Soomaali waxay u baahan tahay maanta fursad loo abuuro, rajo in loo abuuro. haddaan rabno maanta dhalinyaro badan oo runtii يعني صوبتي إني قليل أنتي قادم يعني فكر حاجة وأريان وحلقة أقولك ولا أقولك زيت إني قصة نسمتها في الصلاة مركو واجب أنا سهل في الصلاة سنة خدمه إلى قليلة صوانت تصنم إن الجناح الجوب فهمتي أي وحب الكلام أي غير قصة الكلام يعني ذوق والمصر الكلام.